madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Garowe ayaa kulan wada tashi isxogoraysi ah la qaatay madaxda dowlad goboleedyada. kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si bulshada Soomaaliyeed horumar loogu horseedo, taasoo ku imaan karta in si dhab ah looga wada shaqeeyo dowladnimada. talo iyo tusaalooyin lagu adkeynayo wada shaqayn iyo iskaashi ku dhisan ka miro dhalinta higsiga bulshada Soomaaliyeed ayaa kulanka la isku dhaafsaday, kuwaasoo madaxweynaha jamhuuriyaddu muujiyay inuu diyaar u yahay wax kasta oo lagu horumarinayo dalkeena isla markaana horseedaya wada shaqayn iyo iskaashi. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaran, magaalada Garowe.